kulanti wacan wanaagsan daawadayaalkani waa rugta TV-da laba kala socotaan wararka Soomaalida guud ahaan caalamka. Aqalka cad ee Mareykanka oo Ruushka u sheegay inuu laba arrimood kala doorto. Talow arrimahaasi waa maxay? xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa xulafada NATO iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa meel xun gaartay iyadoo aqalka cad ee Mareykankana uu yabohay Ruushku inuu kala doorto laba arrimood. Labadaas arrimood ayaa kala ah inuu duulaan ku qaado wadanka Ukraine isla markaana uu cawaaqib xumo ba'an kala kulmo iyo sidoo kale inuu wada xaajood nabadeed qaato. taasoo madaxweyne Putin uu arka waji gabax iyo waliba ceeb ba'an oo soo gaari doonta sumcadiisa iyo waliba awoodiisa. Haddaba maxaa laga fili karaa Putin oo ah dictator madax adag una yaqaano inuu aad u amar adag yahay, balse aqalkii caddaay adduunka ugu quwadda badnaa ayaa amar soo rogay. bal muxuu sameyn doonaa labada amar mid ku qaadan doona Putin? waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna nool gobolka Virginia oo arrimahaasi faahfaahinaya. dhowr qodob bay salka ku haysaa oo run ahaantii aad mooday inay iskhilaafsan yihiin. mid waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay Putin ama madaxweynaha Ruushka uu soo duldhigay Ukraine oo 100,000 kor u dhaafay oo adduunka oo dhan leeyahay weerar buu soo qaadayaa oo weerarkaas ka joojiyay Ukraine. iyo asagoo la ciidamada xuduudkayga ay joogaan cidna anigu weerar kuma ahi, laakiin bal marka hore NATO oo ilaa iyo 1990kii xuduudayada ku soo siqaysay oo gantaal la soo dhigaysay oo dalal fara badan ku darsatay oo haddana weli sii socoto xataa Ukraine rabta inay ku darto NATO iyo isku fididaas ay xulafada ama gaashaanbuurta NATO ay waday teeriya markii Sovietku burburay naga daaya. marka wuxuu leeyahay Ukraine waa arrin aad moodo in la dhoobdhoobay maahane nuxurku waxa weeye in anagu Ruush haddaan nahay amniga iyaga xuduudda in la sugo oo aad nasiisaan guarantee ama se heshiis dhaba oo sharciyeysan inaydnaan nagu soo siqayn oo xuduudayada gantaalada iyo waxa aad soo dhoobteen aydnaan na duldhigi doonin oo aad yarayn doontaan duulaanka aad amniga iyaga ku tihiin. arrintu labadaas baa ay salka ku haysaa. dhowaan dowladda Mareykanku waxay sheegtay in Ruushka laga yaabo inuu weerar ku qaado Ukraine. madaxweyne Bidenna wuxuu doorimaadsiiyey Ruushka laba arrimood midood inuu qaato oo ah in Ukraine uu weeraro oo cawaaqib xumo uu kala kulmo sida hadalka u dhigay, iyo inuu wada hadal nabadeed oo dhexdhexaadin ah uu aqbalo. marka haddii dagaal ka dhaco meesha maxay uga dhigan tahay siyaasadda guud ee dunida iyo amniga iyo dhaqaalaha? dagaal hadduu ka dhaco Ukraine oo sida la saadaalinayo uu Ruushka ku soo duulay Ukraine waxay abuuraysaa dhibaato aad u ballaaran, qaxooti badan oo Yurub ilaa iyo hadda waxaa la leeyahay 1950kii iyo 1945 iyo waqtiyadii laga soo kabanayay dagaalkii labaad iyo dhibaatooyinkii Yurub ka jiray wax u dhigma inay ka dhacaan qaxooti badan abuurmo Yurub ay deganaansho iyo xasilooni ay muddo arag dhaqaalaha dalalkaas oo dhan inay dhibaato u geysato iyo welibana inuu dagaalku sii fudo oo dalal kale ay markaas soo galaan oo bariga Yuruba ama siyaabo kale inta wax isgaarsiiyaan Ruushka iyo Mareykanka iyo ay dhibaato kale keento. inkastoo hadda la leeyahay ay caddahay inaan NATO ama Mareykanku aanu difaaci doonin Ukraine, haddana dhibaatada kale oo ay abuurayso iyo xasilooni darrada iyo Yurub dhibaatada ka soo gaaraysa taasa waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka oo dhan. loolankii xagga awoodda ee quwadaha adduunka waxa soo barbaarka loo yaqaan oo Ruushka iyo Mareykankuna ay kamid yihiin. loolankii ka dhaxeeyay baradhaweed waan ogeyn in Ruushka iyo Shiinaha ay sidoo kale kulmeen oo Beijing ay ku kulmeen Putin iyo madaxweynaha Shiinaha. marka loolanka weyn ee siyaasadda dalalka quwadaha waaweyn ee dunida isku haystaan arrinta Ukraine qayb ma ka tahay? wax weyn bay ka tahay. haddaba nuxurkeeda sida haddaaya aan sheegay nuxurkaba waxa weeye NATO oo isballaarinaysa iyo Ruushka oo cabsi ka abuuray arrintaas oo dhahaya waxaani waa ka duwan yihiin Ukraine waa wax maaragtay isballaarin ay isballaarinayaan reer galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka ay ku eedeynayaan. iyo dhanka kale oo Ruushku intuu heshiis la galay Shiinaha aad moodo inuu run ahaantii uu sameynayo aggression ama waxaan loo yaqaano faragelin xoog badan oo uu waatuu Ukraine ka qaatay, Crimea waatuu ka qaatay, hadda ka hor waatuu Georgia weerarka ku qaaday, hadda waa 900,000 Ukraine dul dhigay.
dalalka hadda dariska alla ah oo dhan oo markii hore former Soviet-ka la oran jiray ama dalalkii hore oo Warsaw ka tirsanaan jiray oo dhan waa hashkadeynayaan oo waxay leeyihiin hadduu Ukraine kusoo duulo annagu nagu soo socdaa. marka waa sax weeye isfidintaas ay isfidinayaan quwadaha waaweyn ama super powerskii hore waxaad moodaa inay arrin weyn ku leedahay gaar ahaan Mareykanku walwal zaa'ida uu ka muujinayo heshiiska Shiinaha iyo Ruushku. hadda Putin waa tuu joogay Olympicii waxyaabo badanna ay ku heshiiyeen. Shiinuhuna waa kan hadda u hiiliyay oo arrintan dhahaya hala daayo Ruushku waxa uu sameynayo xuduudiisii buu joogaayo cidna weli kuma duulin. marka arrintaasi talaabo weyn bay ku leedahay, lug weyn bay ku leedahay. ugu dambeyntii dad badan baa waxaa laga yaabaa inay ku fikirayaan haddii dagaal ka dhaco Ukraine oo NATO iyo Mareykanka iyo Ruushka iyo kulli ay ku lug yeeshaan in arrintu ay ku ekaanayso gobolka oo keliya. dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan dunida kale ma saameynaysaa oo Soomaaliya iyo Afrikana ay ka mid tahay? si weyn bay u saameynaysaa dhaqaale ahaan, gaar ahaan waxay saameynaysaa Yurub iyo dhaqaalaheeduna toos buu wuxuu ugu xiran yahay Afrika ugu xiran yahay. sidaad ka warqabto Africa waxay ahayd European colony ama dalalkii ay isticmaalsan jireen. hadda galbeedka Africa oo dhan French frankigu waa lacagta kaliya oo markay kacdana ay tool kacdo, markay dhacdana ay dunto ayaga maamula. sidoo kale East Africa dalkii Ingiriiska iyo ay joogeen haddii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhaco ayagana dhaqaalahooda hoos buu u dhacayaa. toos bay isugu xiran yihiin xagga dhaqaalaha markii la yiraahdo. haddiise dagaalku uu ballaarto oo sii daba dheeraado waxaaba suurtagala markaas inay keento in ay gacan ka hadal rasmi ah oo dagaalka European ama dalal Yurub ah oo aan ku jirin inay dagaalka galaan oo ka qayb qaataan ama naataha kamid ahaan ama ay kamid ahaan. inkastoo la isleeyahay hadda NATO lagama yaabo inay Ukraine daafacdo oo dagaal u gasho oo dal NATO ah uu ka qayb qaado. hub iyo waa siin karaan, tababar waa siin karaan, waxyaabo noocaas waa ka caawin karaan iyo propagandada iyo waxaas. laakiin NATO ma difaacayso Ukraine, ma difaacayso Mareykankuna ma difaacayo. laakiin dadka soo qaxaya iyo culayska ay saarayaan Yurub toos buu wuxuu u taabanayaa qaaradda Yurub iyo inta ku xeeran oo dhan iyo caalamka intiisa kale oo dhan.